waxaan jeclaa inaan mahad gaar aan u celiyo jaamacadda Jigjiga ee madashan ballaaran ee quruxda badan ee maanta noo qaban qaabisay oo loogu dabaaldegayo aqoonsigii xeerka Ciise ee UNESCO. waxaan jeclaa inaan horta aan salaamo martida sharafta leh ee nala joogta odayaashii xeerka, mas-uuliyiintii deegaanka, ardaydii, guddoomiyaashii jaamacadaha wadanadeena. maanta farxad weyn bay ii tahay aan xaggan maanta aan soo hor joogsado oon wixii i geliyey ee igu mashruuc inaan xeerka aan u galo anigoo dhalinyar aan waxniga taabtaarsado. caadada ciisuhu marka aad murtidaa doonaysay raggii kaa horeeyey ay dhaheen waxaa caadaa inaad tiraahdun anugu waxba kuma darayo odayaashii hore yaa wixiiba yidhi yaa caadaa. marka bal waxaan isku dayay wax ka yar duwan waxay ay yidhaaheen oon waxba ku darayn inaan bal waxyar niga faahfaahiyo. hadalkayga horta waxaan ku bilaabi lahaa aqoonsiga xeerka UNESCO-ga muxuu ka dhigan yahay, muxuu nooga dhigan yahay, UNESCO-gana muxuu matalaa. horta waa aqoonsi caalamiya oo maanta aan odhan karno inay guul mudan oo in la xusaa ay tahay. waa aqoonsi lagu sharfayo qiimaha guud uu xeerku xambaarsan yahay. waa maxay qiimaha guud uu xeerku xambaarsan yahay ay guddigii UNESCO-ga ay u joogsatay ay ku qanceen? ta ugu horeysa waxa weeyaan qiimayaasha iyo mabda'da xeerka. ta ugu horeysa UNESCO-ga ay jeclaysatay waxa weeyaan ta sinaanta. waan wada sheegnay sinaanta qarnigii 16aad waqti sidii madaxweynaha deegaanku mar hore khudbadiisa ugu sheegay waqti dadku inay kala sareeyeen, adoonsi uu jiray, guumaysi uu jiray, qoomiyad tiri nin kasta oo xeerkaas ogolaado waan wala simanahay. ciise nina nin caaro ma dheera. maanta taas waa mabda inaan Soomaalida oo ku dhan iyo qoomiyadaha kale ee adduunkuba inay ku dhaqmaan. talabaad waa taadsinaanta. ciise waa tolone yaa la yidhaha. waa mabda la sheegaya maxaan ku dhaha midnimada. taasina waa muhiim. qiimaha saddexaad aan sheegi lahaa ee xeerka ku jirta ee UNESCO-guna ay si gaara ay u jeclaysteen waxaa ka mid ah tan xeerka ka sarraysiinaysa qabiilka. oo ciisuhu wuxuu kaluu haddaan odhan karo uu Soomaalida kale uu in yar uga duwan yahay waxa weeyaan ciisuhu wuxuu gaaray heer uu dhisto qaran ku salaysan xeer. waa taa waxa keentay ilaa imika inuu xeerkuna soo gaaro. Soomaalida kale way leeyihiin xeeraro way u baahan tahay sidii guddoomiyaha jaamacadda Camuudba uu sheegay in maaragtay la baaro oo la darso. laakiin tana soo gaarsiisay xeer ciise loo leeyahay waxa weeyaan taas wax sawaabiya qarannimo oo kale inay ciise ay dhisteen oo ka sarreeya tii qabiilka. waayo maxmaha baa jirta odayaashu ay garanayaan oo ah walaalka markhaatiga ku fur magtana la bixi. walaalka markhaatiga ku fur magtana la bixi. taabaana tusaysa ina xeerka laga sarraysiiyo dhiigga iyo qabiilka. marka waa waxaa qiimayaasha badan weeyaan waxay UNESCO xeerka u joogsadeen oo loo diiwaangeliyey. dee diiwaangelintaasi waxa weeyaan maxay mas-uuliyad saaran. dee waxaa la socdo conventionka UNESCO-ga ay dowladuhu saxeexdeen. waxaa la socda waxaan obligation la yidhaha waa waajibaadada dowladaha codsaday inay diiwaan geliyaan dhaqankooga iyo dhaxalkooga saaran weeyaano. ta ugu horeysa waxa weeyaan in horta wixii la badbaadiyo inaa maaragtay laga dhowro
inuu maxaan qoraa usbadilo in laga dooro in lagu si xum loogu amal falo in laga dooro in la wixii maaragtay la siyaasadeeyo waa obligationada saaran dawladihii iyo bulshadii maxaan qoraa xeerka soo jeeday obligationka kale waajibaadka kale ee saaran waxa weeyaan ina waxbarashada la geliyo ina maxaan qoraa lagu amal falo in lagu shaqeeyo in maxaan qoraa maxkamadahii casrigu ay xeerka ay soo dhaweystaan ay isku dayaan sidii ay u gelin lahaayeen structuradooda ay ugu shaqayn lahaayeen taasuna waa waajibaad waxbarashada in la geliyo waa waajibaadka aniga ilaa ka ugu waaweyn ee lagu badbaadin karo xeerka si uu sii jiri karo oo loogu sii shaqayn karo marka maanta farxad weyn bay ii tahay afartii gudoomiye jaamacadaheena Amuud Jigjiga Diridhabe iyo Djibouti xaggan maanta ay wada joogaan oo intaan shirka bilaabin baan shir gaar aan yeelanay aan ka sheekaysanay sidii loogu dhigi lahaa jaamacadaha iyo siday iskaashi gaar ay u samaysan lahaayeen oo loogu dhigi lahaa xeerka jaamacadaha afarta jaamacadood kuwa kale nagu soo biri kara Hargeysa noqotaya Taxamar noqotaya iyo kuwa iyo jaamacadaha kale Ethiopia waa taas waa dadaalka waxa maxaan kuraa UNESCO ay naga sugayso maadaama afartii sanadoodba waxa ku qasban dawladihii diiwaan geliyay xeerka inay report u sameeyaan UNESCO-ga reportka ay ku sheegayaan waxa la wixii la qabtay sidii looga baxay oo looga jawaabay waajibaadkii saarnaa dawladaha marka haddaan u soo noqdo xaggii buuggii aan qoray markaa sanadka buugga aan bilaabay cilmi baaristii waxay ahayd 1985 inan yar baan ahaa jaamacadaha waxaan markaa cilmiga siyaasadda weeyaan waxaan ku jiray waan soo noqday waxaan la soo noqday fikrado kale oo run ahaan dhaqankeena iyo dawladeena ma quseynayno oo iska ballaaran markaan soo noqday Djibouti aan imiday iyaan arkay waxa markaa Djibouti jireed waxa la yiraahdaa forum dhaqameedoo odayaasha la soo ururiyo Djibouti isku dayaysay bal inaan ka faa'iideysano dhaqanadii hore wadankaasi u lahaa ayaa waqtigaa jiray odayaal badan baa ka yimiday meel kasti oo la shirinayay oo lala tashanayay markaan maqlay xeerkan ay ku halqasanayaan xeerkan oo markasti qof kasti cid kasti uu hadalayo oo leeyahay waxaan xeer uma lihid xeerku wuxuu yiri xeerkan la sheegayo abayaashayna aan ka maqli jirnay maalba thesis-kaygi doctorate-ka aan ku sameeyaa markaan sidaa leeyahay aniga waxay iga ahayd sidee aan thesis-kayga doctorate-ka aan u helaa markaan odayaashii la sheekaystaan fajac yaaba way galay yani maan moodeen xeerkan la hadalhayee la sheegayo cilmiga uu ku salaysan yahay oday kastoon weydiiyo waxayga aan la fajacay sida cilmiyaysan ee dhisan uu igu macnay uga jawaabayay su'aalaha aan weydiinay markaa baan yidhi waa tani xeer uu ka ballaaran yahay waa cilmi waa aqoon waa taariikh waxa meeshan maxaan kuraa uu xambaarsan yahay waa sidaa daraaddeed waxaan aan u golay runaan waxay iga qaadatay 5 sanadood waxa ila dadaalay oo xaggan si gaar ah jeclaa inaan u mahadna celiyo Allah yarhamu Umar Macalin Umar Kuul oo abwaan la yaqaan ahaa gabeeya abwaan xeerkana si dheer qoto dheer u galay Umar yaa horta ila wadaagay wixii uu cilmi baarista sameeyay ninka labaad aan jeclaa maanta inaan mahad u celiyo uu nool yahay Xasan Malu waa la yiraahdaa oo wuxuu Diridhabe imika ku nool yahay Xasan Malu iyo isaguna qoraaladii ugu horeeyay bilaabay inuu xeerka odayaashii waraysto wax ka qoro qoraaladiisii oo gacanta ku qoran iyo ila wadaago aad baan ugu mahadnaqayaa aad bay